naag tiktok isticmaasha hadda iyo wixii ka dambeeya waxay iga tahay siil sagaarabnana asxaabta qaaligaa soo dhawaada warkii hore war soo dhaaf waxa idin keena shaambo iyo saabuun waxa ii suurtageliyay ay tahay waa marwooyinkayga oo ayaga raali iskaga muuqaalo badan oo hablaha Soomaaliyeed ugu gafayo ayuu baraha bulshada ku faafiyay dhowr jeer ayuu sidaasi sameeyay hase yeeshee marnaba uma suurta gelin inuu magac yeesho sidoo kale mar kale ayuu tijaabo kale sameeyay waxaana shaqo ka raadsaday goob ay dumarku isku cadeeyaan halkaas ayuuna muuqaalo ka soo dhex duubi jiray haddaba shakhsigan ayaa ugu dambeyn waxa uu baraha bulshada soo galiyay inuu dhawaan guursaday 3 hablood 3 gabdhoodna ay hal meel oo qura u wada degan yihiin haddaba maxaa arrintaasi ka jiro cadeyn rasmi ah ayaan ku hayaa halkee ayuu ku yaalaa gurigan ay waxaan ku soo bandhigayaan ma dhaba mise waa sax gabdhahan inay yihiin xaasaskiisa haddaba daawadayaal cadeymahaas oo rasmi ah oo muuqaalo wato ayaan kula wadaagi doonaa inta aan barnaamijkan u guda galin waxaan idinka codsanayaa inaad muuqaalka leegareedaan si dadka Soomaaliyeed ee xaqiiqada rasmiga ah arrintan ku salaysan ay u ogaadaan sidoo kale nagu soo biir oo kamid noqo asxaabteena haddii aad nagu cusub tahay adigoo channelka subscribe saaranaya sidoo kalena page-keena like dhahanaya malabsade waa shakhsigan aad aragtaan kaas oo bartamaha kaga jira 3 hablood waxaana shaaciyay in ay yihiin xaasaskiisa rasmiga ah haddaba maxaa arrintaasi ka jira daawadayaal muuqaalkan ayaan ku soo bandhigi doonaa xogo iyo macluumaad ku saabsan shakhsigan oo caandoona ayaa waxa uu doonayaa in gabdhaha Soomaaliyeed uu ku soo caanbaxo haddaba bal marka hore aynu isla daawano shakhsiyadda dhabta ah ee shakhsigan isaga iyo shaqadiisa rasmiga ah waxa ay tahay isagoo baayac mushtarka ah waxyaabaha ay dumarku isku cadeeyaan ee diinteenu aysan banayn asxaabta qaaligaa soo dhawaada warkii hore war soo dhaaf timaama kaa go'gaan gabaray agoon muku dhiga afraaqama timaama kaa dhaataan shalad markaas leesanaysid xaafad timaam soo raacda haddaba malabsade ayaa arrintan u suurtagali weyday waxaana mar kale bilaabay in uu hablaha jaa'ifeeyo si uu arrintaasi magac uga sameeyo waa kan muuqaaladii uu iska soo duubi jiray kaas ugu gafayay gabdhaha Soomaaliyeed tiktok ama qofkii keen Allah ka gooyo naag tiktok isticmaasha hadda iyo wixii ka dambeeya waxay iga tahay siil sagaarabnana magaca ilaah qoftaa intaas barnay abuu sawir isaga ka xaysuusis qofti hadda markaan u tagay bismillaah qof 9 bilood xanuunsanaa sariirka soo ka camudaaniyo gacmihii ka barbaranta intii kale hadda uu mucjiso kaadba gacantii indhaha wallahi tir eegay dhalawaay naag tiktok isticmaashana mar kale tijaabadaas ayaa uu hirgeli weyday waxaana dadweynaha Soomaaliyeed ee TikTok-ta isticmaasha ka codsanaya inay follow soo dhahaan sidoo kalena ay like dhahaan si uu caan u noqdo haddaba tijaabadaasi miyay hirgashay waa maya bal aynu isla daawano muuqaalada uu waxaasi ku sheegayo waristaag ari ma taad intee u dhaafay anna waxa ii gashaa adna wax ka dhibme loof iska saar abo inta waan la fiyo waay loof saar bismillah loof saar bismillah bandhigiisii iyo qaab walba uu damacsanaa ayaa shakhsigan u hirgeli weyday waxaana mar kale u soo ruqaansaday in uu tijaabiyo fursad kale taas uu tusaale kaga dhiganaya taakeeye afarxaas leh oo baraha bulshada si fudud u qabsaday haddaba arrintaas isaga oo tusaaleysanaya ayuu markan waxa uu damcay inuu 3 hablood indhaha ka soo xiro kadibna uu ka dhaadhiciyo fikradda ah inay yihiin xaasaskiisii wejigeedana uu qariyo maadaama haddii wejigooda uu soo bandhigo ay faamiladoodii iyo dadkii ay ka dhasheen ay qabsanayaan haddaba waxa uu ka inay wajigooda qariyaan si asaga ay caan uga dhigaan isaga uu wajiga furan doono TV badan ayaa arrintiisa rumaystay waxayna aamineen in arrintaani sax tahay waxaan baaritaan u galay arrintan waxaana la xiriiray qaybo ka tirsan wiilkan faamilkiisa waxay ii sheegeen in xaafadda waxaan uu ku soo bandhigayo uu leeyahay walaalkiis waxay ku taalaa degmada Hodan qaasatan Albaraka waxayna u dhowdahay gaashaandhiga gurigan shakhsiyan ninkan ma lahan waxa iska la walaalkiis hase yeeshee muuqaaladan jiliinka ay ku duuban dadkana waxay kaga dhaadhiciyaan waxaan inay wax rasmi yihiin haddaba daawadayaal dadka Soomaaliyeed waxaan leeyahay waa in laga digtoonaada wax walba sidaad u arkaydaan sax uma ahan waxaan jecelnahay had iyo jeer inaan xaqiiqada rasmiga ah idin la wadaagno gabdhaha Soomaaliyeedna ma aha wax fudud guurkoodu gabar kasta oo Soomaaliyeed waxa ay leedahay qiime aad u weyn marka aad aroosiisana waa inaad faamilkeeda u tagtaa suurtagalna ma ahan inaad gabar Soomaaliyeed inta soo aroostay aad wajiga ka xirtay adigii waan ku qarinayaa anna waan soo bandhigayaa wax suurtagal ma ahan haddii aysan waxaan sax yihiin gabdhahan wajiga ayaa laga furi lahaa waxaan rajaynayaa inaad cadeymaha ku qanci doontaan intaan muuqaalkiisa kala kulmayno waxaan idin leeyahay sida iyo nabadgelyo halka aad nagala socotaan waa Garsoor Media ha ilaabin subscribe-ta muuqaalkan aad like dhahdo sidoo kalena aad page-keena like dhahdo mahadsanid